darsigeena maanta wuxuu ku saabsanaan doonaa bishaaradii nabiyullaahi ibraahim rususha ilaahi subxaana watacaala ay u bishaareeyeen iyo sidii nabiyullaahi ibraahim uu u qaabilay. intaa waxaa dheer oon dib kasoo gudbin doonaa walaalahana la wadaagi doonaa bishaaradan iyo aayaadkan aan fasirnay waxyaabaha ay xambaarsan yihiin iyo duruusta iyo waxyaabaha axkaamta ee ku jira ayadana dib baan idinkaga soo gudbin doonaa iyo xalqada dambe. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ولا ليال وحان كسو جرني برنامج قصص القرآن الكريم كاها وعن سوق هذا قصة اللحاد هي فوائدي حنبار سناد وقصة كجري. darsigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay bishaaradii nabiyullaahi ibraahim rususha ay u bishaareeyeen ay u hambaliyeeyeen iyo waxay ugu hambaliyeeyeen iyo sidii isaga uu u qaabilay nabiyullaahi ibraahim rusushii ilaahay u soo diray subxaanahu wa tacaala iyo bishaaradii xaaskiisii saara ay rususha u bishaareeyeen iyo hadalkii ay ku hadashay ayaanu dul istaagi doonaa. kadib nabiyullaahi ibraahim sida uu oola hadlay uu oola dooday soo dhoweyn kadib rususha. intaa ayuu darsiga ku saabsanaan doonaa. qisadina waatana hadday noo bilaabatay, bishaaradii hadday noo bilaabatay. allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi walamaa jaa-at rusulunaa rusushanadii markay timid rusushanadii laga wado malaa'igtanadii markay timid ibraahiima nabiyullaahi ibraahim markay u timid bilbushraa bashaaradii markay oola timid qaaluu waxay yidhaahdeen salaaman يعني نسلمك وانك سلامينا سلاما سلام ايانك سلامينا. قال وحي نبي الله ابراهيم اسقوا جوابها سلامتنا كقادها سلام عليكم نبدغليه كركينا ها هاتو عليكم بأسو قدرنيسا سلام نبدغليه عليكم دشينا ها هاتو. كدب سلامتي مركو كقادي نبي الله ابراهيم وحنا بريا ilaahayna subxaana watacaala noo tilmaamaya in dadka martida xaq ay kugu leeyihiin iyo soo dhoweyn. waatan famaa labitha kama daahin an jaa inuu la yimid ibraahim bicijlin dibi inuu oola yimid xaniidin oo la solay. dibi la solay ayuu oola yimid nabiyullaahi ibraahim, yacni wuu u loogay, wuu soo dhoweeyey, dibi buu usoo hagaajiyey oo usoo diyaariyey. xaniid weliba ahoo hilibka noocyadiisa noocyada ugu macaan weeye. falamaa ra'aa aydiyahum falamaa ra'aa markuu arkay ibraahim aydiyahum malaa'igtii gacmahoodii laa tasilu xaal aysan gaaraynin ilayhi cijligii xaniidka ahaa nakirahum wuu qoonsaday wa awjasa wuu qariyey minhum ayaga xaggooda xaalay ka ahaatay khiifatan cabsi. nabiyullaahi ibraahim cabsi baa gashay. dad aada salaanteen isa salaanteen kadibna aada cunto iyo martiqaadid aada u samaysay, haddana raashinkii iyo cuntadii iyo hilibkii aada u keentay gacmaha ka qabsaday oon cunaynin. arrintaasuu nabiyullaahi ibraahim yuu qoonsaday. qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii markay arkeen nabiyullaahi ibraahim isbeddelka ku dhacay waxay yidhahdeen laa takhaf ha baqin innaa ursilnaa ilaa qowmi luut waxaa naloo soo diray qowmu luut baa naloo soo diray oon u soconnaa. wamra'atuhu xaaskiisina way u bishaareeyeen. bishaarada nabiyullahi ibraahim khaas kuma ahayn ee xaaskiisii saarana way u bishaareeyeen. wamra'atuhu xaaskiisina qaa'imatun mid taagan ay tahay. waaya wamra'atuhu nabiyullaahi ibraahim xaaskiisii qaa'imatun mid taagan weeye. fadaxikad way qosashay fabasharnaa waan bishaaraynay waan u bishaaraynay haa saara ayaan u bishaaraynay imra'adii biisxaaqa ayaan ugu bishaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq kadibna waxaan ugu bishaaraynay yacquub ayaan ugu bishaaraynay buu yidhi alla subxaanahu wa tacaala. xaaskiisii markii loo bishaareeyey nabiyullaahi ibraahim saara isxaaq kadibna yacquub ay dhali doonto sidaa markii loogu bishaareeyey way la yaabtay, arrintii bay qariibsatay. qaalat waxay tidhi
yaa weylataa ba-aye aalidu miyaan dhali wa ana cajuuzun walxaal ana anigu cajuuzun duq an ahay wa haadaa kana baclii zawjkaygii wey shaykhan xaaluu yahay duq asagana ina haadaa kanu bay tiri la shay-un waa shay cajiibun oo la yaab lahay tiri annagoo da-daan joogno oo waayeello ah iyo dhali doontaan isxaaq kadibna yacquub baa dhalan doono arrintaa waa arrin la yaab lahay tiri cajiib ah weye xagga caadada iyo dhaqanka markii la fiiriyo waa arrin cajiib ah weye amaa xikmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo awooddiisa iyo qudradiisa markii la fiiriyo waa iska shay basiid ah weye qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii iyo rusushii waxay yidhahdeen atacjabiina min amri illaah arrinka alle miyaad la yaabaysaa raxmatullaahi naxariista alle iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisa calaykum dushiina ha ahaata ahla albeyti ayaan gaar yeelaynaaye akhusu waan gooni yeeli ahla albeyti yaa ahla albeyti ahlulbeytkaano innahu alle xamiidun ay maxmuudun mid la mahdiyo weeye majiidun oo sharaf leh allah subxaanahu wa tacaalana waa mid xamiid ah la mahdiyo sharafna leh intaa markay dhacday nabiyullaahi ibraahim waataan soo tilmaanay in uu qoonsaday nimankan gacmaha ka laabtay martiqaadkii iyo hilibkii iyo salaygii uu u sameeyey falamaa dahaba can ibraahima alrawc falamaa dahaba markuu ka tegay falamaa dahaba markuu ka tegay can ibraahim xaggiisa markay ka tagtay alrawcu argagixi markuu ka tegay faacilku waa rawca falamaa dahaba alrawcu argagixi markuu ka tegay can ibraahim markuu argagixi iyo cabsidii iyo walwalkii markuu ka tegay oo wajaa-athu ay u timid albushraa bashaaradiina ay u timid yujaadilunaa ayuu nala doodayaa fii qowmi luutin reer luut qowmu luut arrinkooda ayuu nagala doodayaa yacni ibraahim markay sidaa dhacday waxa uu kula dooday bishaarada markay u timid waxa weeye markii suuratu daariyaad lagu faahfaahiyey oo yidhaahdeen anagu malaa'ig baan nahay bighulaamin xaliimin baan kugu bishaaraynaynaa xaaskiisina ay u bishaareeyeen oo bishaarada ay u timid argagixii waa ka tegay wuu la hadlay marka malaa'igtii buu la hadlay fii suurati daariyaat buu ilaahay noogu sheegay wuxuu yidhi qaala nabiyullah ibrahim wuxuu yidhi famaa khatbukum ayuha almursaluun rusulay arrinkiina iyo xaalkiina muxuu yahay qaala wuxuu yidhi famaa khatbukum sha'nigiina muxuu yahay ayuha almursaluun kuwan lasoo dirayo arrinkiina iyo sha'nigiina muxuu yahay sidaa ayuu yidhi tii ayada ahayd ba halkan lagu soo gaabiyey wajaa-athu lbushra yujaadilunaa fii qowmi luut qowmu luut buu nagala doodayaa oo yacni malaa'igtii baa wuxuu ku yidhi warde annaga maxaad naga soo doonteen annaga maxaad noo soo marteen haddaad qowmu luut u socoteen qowmu luut nabiyullaahi luut baa la joogo asagaana u xil saaran asagaana dacwada halkaa ka wado asagaa oday u ah maxaad naga soo doonteen buu yidhi doodad sidaa wey fii suurati alcankabuut buu ilaahay ku tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxay ugu jawaabeen marka rusushii ina fiiha luutan sidaa markuu ku yidhi ayaa waxay yihi qaaluu naxnu aclamu biman fiiha ibraahimow annagaa kaa ogaasha badanoo kaa og cidda ku sugan qowmu luut dhexdeeda marka arrinta ayadaa waxaa weeyaa la leeyahay nabiyullaahi ibraahim wuxuu ahaa dacwada iyo aabbaheed iyo odaygeeda ayuu ahaa qur-aanka da'bigiisana wuxuuna barayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka daaciga ah oo kaaga horreeyay dacwada ee meesha sii joogay oo dacwada waday inaad ku ixtiraamto kala tashato wixii soo kordhay aada weydiiso ixtiraaman lahum ayay rususha waxay usii mareen ibraahim calayhi assalaam markaas allah subxaanahu wa tacaala wuxuu noogu soo gebagabeeyey ina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim la xaliimun waa mid dulqaad badan awaahun oo taah badan muniibun oo noqdo weeye waa mid awaah mubaalaqo wey khashyada iyo cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu la taahaya waxa ilaahay subxana wa tacaala cadaabkiisa dikrigiisa
aqoontaas markii uu istixdaarsado qalbigiisa ay gasho ayuu nabiyullaahi ibraahim waxa weeyaan ayuu taahaya waxa ilaahay dadka muuminiinta u diyaariyay nicmada iyo barwaaqada markuu arko wuu taahaya markuu arko dhinaca kale waxa ilaahay subxaanahu watacaala kuwa caasiyey uu u diyaariyey cadaab iyo halaag ya xumaan iyo balaayo dhan markuu arkana wuu naxaya iyadana wuu la yaabaya awaah mid taahid badan weeye oo cabsida ilaahay la taahid badan muniibun oo noqosho badan weeye markaasaa waxaan idhi yidhi allah subxaanahu watacaala yaa ibraahiimu acrid ka jees can haada doodaan jooji inahu amri shani qad jaa'a amru rabbik rabbigaa arrinkiisii ayaa yimid oo amru halaag wa inahum ayagu aatiihi miduu u imaanayo weeye cadaabun cadaabkaasoo marduudun la radiyo cadaabkaasoo gayru marduudin aan la radinayn qoomkaas arrinkooda iyo shanigooda iska daa dooda jooji nabiyullahi ibraahiimo qowmu luut soo maahan waa la halaagi doonaa gayru marduudin wey weliba midaan la radinayn oon la celinaynin mooye sidaa ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nabiyullaahi ibraahim bishaaradii iyo doodii asagii rususha dhex martay uu noogu soo guuriyey hada wabillahi towfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin wacala